أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أرانتنا الشيخ أوجين جرة شيخ شامل قرصة في ياد تشيسا بريدة تكون في كبا و يرون توني اتديما جرتو بيا خيسته بيالا إن شاء الله أبلين خينيا خا صوماليتي في أبلين خينيا خورمو وجين وان نخيسا ركبا في وميت أدى ديما جرو خناف إن شاء الله شيخني واتكو دبتو فداتي إن شاء الله مي هردو فشيرس قدا إن شاء الله السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله شيخ أمي قافي وني سقافدو مالي ديما جرا مالي وني لقيني في وني أركا جرو في وني أيسين قم خيسانين كوبا قبضني في قرصة نوخنتني في هذا الشيسا في وانما هندا في قرصة نجيا نوخنتن مي مالفات دران درسيكم وسن إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن جاء دامسين أنكبو توقفا أمتا الله خينيا وبليين كينيا كان سوماليتيف أمتا قرتيف روما ولك أمنوف دامسا اندبر سوبر بادا سببا وان الرانتنا أركام الرتي دابديتي سبب نينيس أمانتنا واني بيخيش ديمو تولي دور إسان إيانو ساني قدو دا دبر ستوران جولو تو خينيا كان قرتي الرانتنا موتوما بيولي سرتي موتي تاني بوچا تاني أكابيو دكتور أبيو أحمدي في لما اللي هنگا غافين ساني هاي نسوداتني أمتا خانا نسوداتني جانتك غيسي ترتي أما يرو أزيبيت ديبي إيدو وتركان في إساني فودتي رتي ديبي أنيت أمني وان جيكم ستي جيجيراني وان دوران غاف ميساني توري ديبي ساني أكا برتي وان جيجيراني أمتاتيس أكا خرانتان اندبرسا جيرانيف خنا الرادوبا أفان إسام بيغنين أكان غرتي دام سخيا خلتي ميديا تكا ميشا سبقون نمتي خا فيسبوك فولج أن كانان دبر سودان بربادا توقفا غافين كيان كسما إن شاء الله وان اسم بيتن وان نوفيمتن يوكباتن اتفافا جزاك الله توقفا أمتا أوروم أوتيف ونين دبر سوف وني أمان تنديمو ورابي سقويا jechuun waraabisa aduu itti baate odoo ganda keessa deemu yeroo dirreetti qabamu akka ta'u ni beekti Oromoon saniifuu gaa akkuma joollotiin keenya hayyootii yaamanitu waraabisa guyyaatu gartee aduun itti baate saniif jecha yeroo tarkaanfiin fudhatame kanaafuu hanga inni dhugaa ta'ee fi kaan amman gammad anaaf illee hin galle garuu akka dhageenyu gartee meeshaa sabquunnamtiirraa meeshaa mul'iftuu fi dhageessiftuurraa akka dhageenyutti bulchaan naannoo biyyoolessa Somaaleedhaa naannoo Somaaleedhaa gartee harka mootummaa biyyaa san jalatti akka oolameetu dhagayamaa kunummoo hanga dhugaa ta'ellee ka miidiyaarraa dhageenye nuti waan achi hin jirreef kanaaf jecha immoo jeequmsi uummanni naannoo sanii qabeenya Oromootii fi hatta baankii Oromiyaatii fi baankii gamtaa Oromiyaa baankii international Oromiyaa fi qabeenya Salaalee qabeenya Guraagee qabeenya uummata Oromoo walumaa galattuu uummata nagayaa uummata hawaasa biisaan san keessa qubatutti saamuudhaan sanuu saamicha bira qotanii meeshaa sabquunnamtii miidiyaa aanamma raadiyoo bedoo kanarratti ol baasanii dhaadannoodhaan akkanatti bilqaaxallee kan hambifne firinjiilallee gurrataadhaa akkanatti itti dhaadanii kunigaa kuni waan gartee namnis laa guddaan tokko dalagu miti garuu uummata kiyyaaf tasgabbiidhaan dhaama akka tarkaanfii uummata sanarratti hin fudhanne bakka jiranitti akka tasgabbaa durattuu Oromoo wanni beekamtuun garaa bal'ina waan beekamtuuf jecha gara bal'ina isaaniitiin irra dabruuf hin barbaada akka irra dabranii fi yeroo fidee waan kanaaf irraa obsanii dhaamaa fi warri immoo rakkinni irra gahee isaanilleef obsa jabaan hawaa fi namni tokko hoggii gartee warroomuu deemu waan jajjabduu keessa dabra namni tokko hoggii bulchiinsaa keessa seenu jeequmsa hedduudhaatu isa qunnamaa kana tasgabbii akka isaaniin akka gartee hammeenyaan isaaniif dhaama gama kaaniin amma afaan Somaaliitiin dabra umma Somaaliitiin maal dhaabde shaabii Somaaliitiin ummati jiruusan maal dhaabde isla markaana anigoo oo ku hadlaya afka ummadda Oromada Ameerika say joogaan waxaan u gudbinayaa fariintayda
anigoo idiin marsiinaya Facebook ama alaabta media alaabta macnaha bulshada baraha bulshada anigoo idiin marinayo waxaan u riyaaqayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed si gaar ahaan dadweynaha Ogaadeniya ama loo yaqaano Soomaalida Ethiopia waxaan u sheegayaa arrimaha hadda socda jijiga ka socda arrin lagu xumaado weeyaan shacab weynaha Soomaaliyeed oo jijiga degan iyo gagaaraheedaba iyo magaalooyinka degan waxaan maartay u rajaynayaa inay la qabsadaan xaaladda socota iska ilaaliyaan waxyaalaha keenay shaqaaqooyinka iyo isku dirka ummadda taasoo oo hadda ka horna ay ahayd dalabkoodii weynaa heer ay gaarsiiyeen dhaheen Abiy Ahmed iyo miyuunan awoodi karin Abdi Ile inuu ka qaado madaxtinimada markii isagii iyagoo cabaadayo oo hooshoodii loo qabtayna hadda kulli hoosha la qabtay lafteeda inay dhab tahay in kale ma garanayno laakiin waxaanu maqlaynaa in isaga xukunka laga xayuubiyay oo ama gacanta lagu hayo wararka naga soo gaaray macnaha baraha media ayay sidaa sheegayaan marka waxaan u sheegayaa dadka iyaga dadweynaha bulshada ku dhaxanool Soomaalidu waa dad sharaf leh waxaan u sheegayaa inaanu nahay dad Soomaalida iyo Oromadu inay dad walaalo yihiin waxaanu wadaagnaa waxyaalaha dadweyga geeska Afrika ku noolaa ee wadaagin baan wadaagnaa waxaanu wadaagnaa dhalasho waxaanu wadaagnaa diin waxaanu wadaagnaa daris intaba inaga wadaagna marnaba annaga iyo Soomaalidu ma kala baxayno ma kala go'ayno waxaan u sheegay marka dadweynaha la qalday la marahabaabiyay iyo ninkan meesha ka taliyaha ummadii dhiiga cabka wuxuu sameeyay isagoo tagayo nin tagayo kula tagin baa la yiri marka waxaan u sheegay dadka inay xushmeeyaan waxay dhacayaan waa bulshadoodii waxay dhacayaan bangiga dhacaya waa bangi shacabeed bangiga shacabka dhacayaan hantida shacabka dhacayaan waxa dhacayso waa way ku hurinaysaa ma way kuma faa'iideynayso waxyaalaha la dhacayo dadkii la boobaya dukaamada la jijibisanayo guryo la jijibinayo dadkii la dilayo arrimahaas waa arrin laga xumaado waa arrin tiiraayadeeda leh marka waxaan u sheegayaa inay isdajiyaan dadkana aan fariinta khaladka u gudbinin iyagoo waxaan arkaynaa ku dhawaaqaya Soomaaliya tooso isku tirsanaada waa okay arrintaas Soomaalida inay isku tirsanaato waa sax waanu ku raacsanahay hase yeeshee marka in ay baneystaan sidaana ku baneystaan xoolaha walaalahooda Oromada ama xaarada iyo guraagayga dad walba hantidooda inay xushmeeyaan dadkii marka dhageysanayana waxaan u gudbinayaa inay arrintaas ay ka hadlaan oo ka dhiidiyaan sheekadaasu sheeko wanaagsan ma aha fariin wanaagsan ma aha waxaa la rabaa maanta inay isgacan qabsadaan iskana ilaaliyaan waxyaalaha dhibaatooyinka keenaya ama waxyaalaha dadka lagu dhax aloosayo in la iska ilaaliyaa rabaa inaan sheego anigoo ka xun waxyaalaha dhacay dadkii la dilayna Ilaaha u naxariisto dad badan bay laayeen baa la leeyahay intaaba anigu waxaan ka maqlayaa media laakiin anigu goobjoog mihi meesha Mareykanka kaga noolahay waxaan u sheegayaa isla markaana dadka la khalday mariyaha lulaya dadka isku diraya inay iyaguna ka waantoobaan taas marka dadkeena Oromada ama aaminsana waxyaalaha iyagu sheegayaan dadku waa dad idin la mid dhibka ay qabtay waa idin la qabeen hadda marka haddii dhibkii la idinka qaaday inaad marka aad dhibkii raacadaan waa laga fiicayay baa leeyahay waa inay marka insha Allah dadka u sheegaan dadajiyaan waxaan u sheegayaa inaanu nahay dad walaalo macnaheeda in la fahantaan way inagu walaaltinimada waa si dheer tahay diintan walaalo ku nahay daris baan walaalo ku nahay dhaqan baan wadaagnaa waan isqabnaa waan iskuursanaa abtiye aysun baa isku nahay dadka marka inay xushmeeyaan dadka ku dhaxnool baan fariinta u gudbinayaa inay ilaaliyaan walaalahooda ayna ku xadgudbin taas waa midda sidaas si la mid dadka Oromada luqada Soomaaliga qaanan sidaas aan u sheegay inay iyaguna aynan arrintaas laablaka u noqon inay iyagana inta laaba qaadin aynana argoosiga iyo waxa la mid dadka ku dhaqaaqin baan dadkeenana u sheegaya waan u sheegay waxa argoosna ma jiro marka Ilaahay hadii idinka qaaday
kulli anagu ma naqaano inuu ninka la dhaafiyay meesha haddii ninkan alla dhaafiyay marka inay iyagu maartay dhibaato sameeyaan waa laga fiican yahay midka inta badan dadku waxay ku hadlaan shidaalka oromada shidaal ay doonaysaa shidaal bay doonaysaa war shidaal horta dhulka isagaaba shidan dhulkaas Soomaalidu degto isagaaba intaas sana shidnaa dhulka intaas shidanna shidaalkii lagu daray waa shidaal kale oo shid kale marka shidda kale weeyaan shiddadaasi nicmada ilaahay qof kasta way deeqdaa way idin deeqdaa shidaa haddii noqoto dhulka anaga khayraad badan buu leeyahay oromiya khayraad badan bay leedahay dahab bay leedahay bum bay leedahay khayraad badan bay leedahay sida awgeed kuma faanina waa nicmada ilaahay na siiyay marka waxaan u sheegaynaa dadka inay ka waantoobaan waxyaalaha ku dhawaaqayaan waxaa la yidhaha dhagax la turo meel dhow buu dhacaa laakiin erey la turo meel fog buu dhacaa sida awgeed waa inay ilaaliyaan midnimadeenna iyo sharaftooda iyo sharafteenaba inay ilaaliyaan baan u sheegayaa fariintaasaan gudbinayaa anoo ka xun waxyaalaha dhacaya dadka waliba dadka maxastada ah ee wax fahmin waxay sameeyeen iyagoo media ku duwaya Facebook ku duwaya taasna waa ceeb maanta iyagoo doonaya dad horumaraan nahay dad saas ilbaxaan nahay ilbaxnimadu ma aha inaad walaalkaaga dhacdo ama martidaada dhacdid haddana aad media soo gal adigoo dhacaysid oo bilaqaysanayso taas waxaan aad uga xumahay fariinta aan gudbinayo waxa weeye waxyaalaha laga xumaado weeye waana arrin ceeb ah arrinka in laga waantoobaan u sheegayaa dadka walaalahayga insha Allah hadda inta kale kuma ay kaanayna insha Allah waa wada hadlaynaa anigoo marka afka dhinaca diinteena ka hadlaya diinta islaamkana ma banaano waxyaalaha keenaya shaqaaqooyinka sida hadda kaniisad la gubay sharciga ma qabo waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala fala tasubbu alladhina kafaru fasubbu Allah adwan bighayri ilmi dadka gaalada ha caayin diintooda ka caayin baa sababtoo iyagu diin ma yaqaanaan diinta alle inay wax gudbaan oo ilaahay caayaan baa dhiciisa haddii kaniisadii aad gubto marka waxyaalaha khayr ma sameeynin annaga ma anoon ka hadlaynin kaniisada oo aan macnaha kaniisad difaacaynin waxyaalaha baraha macbadka ah sharcigeena ma ogola in la faragashado macbadka la caabudo waa la xushmeeyaa sababta lagu xushmeeyo waxyaalaha keenaysa shaqaaqooyin fara badan bay keenaysaa arrintaas kaniisadana asal ahaan waa meel ilaahay lagu caabudo laakiin ninka gaalkaas kale ha u isticmaalee sida awadeed waa in dadka ay xushmeeyaan sharaftooda sharafta ummada ku dhaxnool iska ilaaliyaan midda labaad inagu xuduudna kala gooyay ma jiro haddaan nahay oromada iyo Soomaalidu waa dad isku mid ah iska dhaaf kuwa nagu dhaxnool Itoobiya ku dhaxnool kuwa Soomaaliya iyo annaga walaala nahay waxaan walaala ku nahay isirka walaala ku nahay asalka ka walaala ku nahay waxa maanta la soo sameynaya ma aha laakiin ninka doonayo inuu shaqaqooyin sameeyo dadka khaldan ee ka faa'iideysanaya dhibaatooyinka waxaan sheegayaa u digayaa inay ka waantoobaan haday ka waantoobaan Allah qabanaya iyaga insha Allah taala sidaas alle fariinteeda halkaas aan uga baxay anigoo ah Shamil Maxamed ما شاء الله جزاك الله الشيخ قافين خيما سيد afaan oromootti afaan soomaaliyatti atiitti jihi khaafi khaafi afaan soomaaliyatti jechuun danda'u Soomaaliya keessa akkuma sheekhni jiru aalimni jiru haati jirtu abbaan jiru eessumni adeerrin jiru Oromoo keessaas jira warra kabajamoo jaalatamoo warra ulfaataa warra tuqaa isaanii jecha waan hamaaf ija hamtuu isaan laaluu hin dandeenye jechuu gama keenyaan isaanis ni qaban walaakaygu wuxuu leeyahay Oromada sida Soomaalidu hooyo iyo aabbo iyo culimo iyo caamo u leedahay bay u leedahay ashraf leh oo arki kari waxyaalaha xun la sameeyo oo waxyaalaha foosh xun hadda dhacaya dadkan arki karin baa Oromadna ku dhax jira sida Soomaalidu ay ku jiraan صح markaas ummata akasi ummata khabajama ummata jaalatama ilmana ma birattis rabbi birattis ummata akasi miidu yoo xijachan tahu harkan tahu akami garan namadandi akamiti onnu ma khamin namni takko akas goru dandiyay marka sida darteed ummadda noocaas ah culimadeeda leh oo sharafteeda leh caamadeeda leh ee ugaaskeeda leh see marka qofka u qalmaysa inuu dhibaato gaarsiiyo arrinkaas waa meel ka dhac waa saboolnimo waa dulunimo sida marka ummadda Soomaaliyeed walaalaheena kama doonayno waa inay aqli yeeshaan dad ilbaxay ahaayeen waa ilbaxnimadooda ma aha in dadka iyaga ka hooseeya ku laabtaan oo dad marti ah masaakiin oo dukaamo yar kula dhacaan arrimaas ama dad masaakiin oo walaalahooda ay ku xadgudbaan الشعب أنا وأعرف فرحمة وليه ilmana ma khaysa nama gaari rijaalata ma khays jarajeen amaas ilmana ma khaysa nama bada nama rabbin jibbu jarajeen dadka waxa ku jira dadka ilaahay jecel dadkana ay jecel yihiin bay wanaagsan
isla markaan dadka waxa ku dhex jira dad shayaatiin oo fool xun oo dhibaato badan jecel nama san khays ama nama khabajama jaalatama ilma qaba obbaleysa qaba adeera qaba namni khuni gidee nama kana raatu ite hindan deew garan namni walirra hama akkuma jirutti gidee gaarii isaa tuqan hamaan sun dhufee miidha kanaafu yoo gaarii tuyne namni wanni hundinuu hamaani qaba hamaan sun bakkarraa bahu nagartu gidee ati miskiina gaarii tuyte hamaan bakka jirurraa dhufeeti miskiina tuqammas sida dadka marka dad xunna waa leeyahay dad fiicanna waa leeyahay dadkii fiicnaana haddii marka fiicnaantii laga badbadiyo oo ilaaliyo waayo dadkii xumaa lagu sameeyo waxaa ka dhici kara kii xumaa oo dad kale isla ka tirsanaa intuu yimaado ayuu xumaan sameynaya sida miskiin kale u dhibaato gaarsiinaya marka isagoo oon waxba galabsanin waxaa la yidhahdaa dad dab munaafiq shide ayaa muumin ku gubtaa Soomaalidu tiraahdaa ibid dagartee munaafiqiin qabsiise muuminiintu gubataa jirta Soomaaliya maaymaas sida dadka munaafiqiinta dadka shidaan inaan anagu dadkeena ku gubanin baan doonaynaa buu leeyahay saas waay amma siis nuti wara rabbi sudaatu wara rabbi ajaje saagod miskiina yooki nama mu'minaa tokko miidhuurraan ilmi namaa yoo nun miidhnelle rabbi subhaanahu wa ta'ala mu'mina saatiif ni dhaabbata mu'mina saa nama tuqe lola wajji khaas kanaafu namni mu'mina tuqe miskiina yataamaa miskiina laafaa tuqe tokko rabbi wajjinii wallola kanaafu isin rabbi wajjii wallolu namni farmi jiraayya dad culamaa ah oo ilaahay aaminsan diintiisa aaminsan haddii aad dad masaakiino oo alla mooyaan wax kale lahayn dhibaato gaarsiisid alla kula dagaalaya alla masaakiinta alle leeyihiin hadda adigu inaan dhibaato gaarsiisid masaakiinta alle leeyihiin ilaahay baa kula dagaalaya hadda masaakiintiisa aad taabatay ilaahay marka dagaalka ilaahayna qof iska celin kara ma laha arrimaha hadda dhacaya waxa weeye waa dagaalka alle masaakiinta la dulmiyey jeel ogaadeen baa lagu bixiyay dadkii masaakiinta lagu gumaaday waxyaalaha iyagoon samayn darteed lagu qasbay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala dagaalkiisa ka mid tahay ninkan alle inuu dhaafiyo waa dagaalka alle subxaanahu wa tacaala wuu dulqaataa marka laakiin dulqaadkiisa waa badan yahay haddii uu qabtana waqti ma siinayo alle subxaanahu wa tacaala uu qabanaya qabashada alle wey wax kasta marka sidaasuu leeyahay namni rabbi wajji wallolee muuhay takkaanagay namni rabbi weligay ma ana wajji maqan nin ilaahay la dagaalamo oo ka raayay weligay ma maqal buu leeyahay ilaahay ninka la dagaalamo ilaahun baa ka reynay subxaanahu wa tacaala waa khaaliqi aya rabbiin guddaa uumeenu tolcheenu barayche kana isaa wajji lola in khaafnu nam tokko khaasun dande yoo khaastees wad bakka dhaytuu sin jiru namnis gargaaruu sin jiru nii sin mootu booddeentee ati hallayyuma marka ilaahay ninka dagaal la qaada ma jiro ma noolaanayo ninka alla la dagaalamo dee subxaanahu wa tacaala waa khaaliqa ku abuuray ma la dagaali karta macnaheedu waxa weeye masaakiinta alle haddaa la dagaasho allah kula dagaalayo wey okay ani odoomaan jooleetu soomaalii fi oromoo obboleeyyan malee waan biraa takkattin beeku anigoo intaa yaraaba soomaali iyo oromada waxaan u aqaanay un walaalay dad inay yihiin weligood dad kala duwan maana arkin yaa soomaalii fi oromoo jechuun akka ija takkaa fi ija mirgaatii fi ija bitaati jeenaaf soomaali iyo oromadu aniga sida waxay ii tahay isha midig iyo tan bidix oo la mid tahay yoo tokko iji tokko dhaamte tokkoon arkuun haalaan jabaatti haddii in la tiro isha kana in lagu arko way adkaanaysaa kanaafuu nuti obboleeyyanii kara hundattuu bakka takka waliin dhaynu afaan keenya wal keessa jira kastaba walaalnahay meel aan kala tegayna ma laha afkeena xataa waa isku dhex jiraa 60% baa afku xataa iskula dhex jiraa irra guddaan aadaan keenya jechi keenya jireenyi keenya akkatti dubbannuu fi akkatti dalaynu kun hundi takka nuti gaar ahaan si inta badan annagu luqadeenna iyo qaabka u dhaqmayno iyo dhaqankeenna iyo sidaa wax ku samayno oo dhan waa isleenahay sidaa u labisano xataa amma siis nuti wal keessa jirra jeen ilmaan haboo ilmaan adaaraa ilmaan aysumaa ilmaan kanneen hundi nuti wal keessa jira eeysa addaan buqqaana jeen jirnaa ilma abti ilma adeer ilma eedo waa isku dhex jirnaa annagii Soomaalidu mana kala baxeen marna mana kala baxeen yoo nuti afaan isaanii dubbachuu baanne yoo isaan afaan keenya dubbachuu baatan nama loluu fakkeenyaaf yookiin nama wajjin akka nama diinaa miti jechuudha afaan annagu haddaan luqadda Soomaali ku hadlaynin ma nihin dad cadow macnaheedu ma aha luqadda haddaan ku hadlaynin inaan Soomaali ka duwanay ma aha waa dad walaala marna ma kala tagayn sanuu irra guddaan keenya afaan Soomaali nu yaqaan isla markaana inaga inteena wada Soomaali waan naqaana sida anigoo ku hadlayo oo kale khabooda waa nin jaw insha Allah nuti waxaan idin leeyahay annagu islaam gaar ahaan waxaan annagu dad muslimiin waxaan u harsanaa kalimada laa ilaaha illa allah amma yoo alatti wallolle
haddaan bannaanka isu dagaallo hoggaa maskiida ol seennu markaan masaajid soo gallo wal bir dhaabannee ni sagannaahi haddaan bannaanka isu dagaallo intaan masaajid soo gallo ma wada tukanaynaa hadduu gizee saganne hoo rabbi nurraa ni qeebalaa akkasii haddaan wallallee annaga bannaanka intaan isu dagaallo masaajid gallo Allah mana kaa aqbalayaa salaada namni lama yoo keeysatti wallole rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ibaadaan isaa hin qeebaltu je laba walaala hadday dagaalamaan ilaahay saddex bal gudahooda hadday ku shii waayaan Allah wuxuu yidhi cibaadadiis lama aqbalayo sani achitu namni islaamaa walilloon intaa waxa ka sii dheer muslimiintu waa walaalo sida xubin oo kale waay ma dagaalamaan yoo islaamni tokko islaama tokko wallolee ajjeese lachuutu jahannama seena jenna sida nabigeena sallallahu alayhi wasallam noo sheegay laba qof oo muslim haddii isdilaan kala dilay iyo kii la dilaba ahlu naar weeye sababta awaalta waata la weydiiyey la yidhi waa kan waxbuu dilee kala dilana niyadiisa waxaa ku inuu dilo isagana wanni jechuu qabduuf nama tokko yoo nam tokko ajjeese namni sun nama ibaadaa godhu nama salaat sagadu nama rabbi gabaru nama laa ilaaha illallah muhammad rasulullah jaw akkamitti harki keessi fuudha jeen dhowdhaaf ajjeesu qof laa ilaaha illallah leh oo tukanaya oo alla aaminsan luqaduu doona ku hadlo seeba gacanta kor u qaado oo dili kanaafuu nuti obboleeyne karaa hundattuu wal jaalannee wal bira dhaabbannee wal gargaarree waliif tumsinee yookiin du'aa'ii waliif goonee warra quraana wajji qara'u akkamitti wallolla annagu dad walaalaan nahay oo quraanka wada akhrisanaya masaajid ku wada dhex jira see isu dagaalaysan horta isdagaalimayno laakiin arrimaha hadda dhacaya innagana ma aha idinkana ma aha arrimo kale weeyaan dad ashkhaas khaldan oo khalad waxa ku sixiraba ayaa dadka ku dhex aloosaya dhibaatooyinka dadkaasna waxay rabaa inay ka faa'iidaystaan laakiin faa'iidadooduna meel ma gaarayso kanaafuu yaa obboleen islaamaa gama keenya ummanni keenya kaballeeysee oofii jennaa insha allah isiniis gama keeysaniin ummata keeysaniin oofii fudhannee jirraa insha allah annaga xaggeena waxaan leenahay wixii annaga xaggeena idinka soo ware cafi musaamaxa baa idin leenahay idinkan sidoo kale waa idin cafinaynaa walaalanahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu